magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa laga dareemayaa diyaargarowga soo dhoweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo la filayo inay soo gaaraan maalmaha soo aadan magaaladaasi. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi ee xariga Kenya ayaa isagu dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaasi iyadoo uu halkaasi ka qabanqaabinayo soo dhoweynta wufuudda ku soo wajahan ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha baarlamaanka ee ku matala dadweynaha reer Jubbaland. muddooyinkii la soo dhaafay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa khilaafkoodu ahaa mid cirka isku shareeray kaasi oo ku saabsan arrimo siyaasi ah. Jubbaland ayaa iskaga baxday madasha dowladda federaalka Soomaaliya bishii Oktoobar sanadkii hore, balse waxaa la filayaa sanad kadib in loo gogol xaaro heshiis ay garwadeen ka yihiin dowladda federaalka Soomaaliya xubno ka tirsan iyadoo la isugu soo dhoweynayo dhinacyada dowladda federaalka iyo sidoo kale labada maamul. si gaar ah Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada hadalkoodu bilaabanaya muddooyinka soo aadan iyadoo labada dowladood ay ka wada hadli doonaan arrimaha muranka iyo isfahmwaagii soo kala dhex galay sanado ka hor, iyadoo Jubbaland ay diyaarinayso gogosha looga baxayo madmadowga iyo sidoo kale khilaafkii soo taagnaa inta muddada ahaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dib uga soo laabtay kulankii uu New York kaga qayb galay qaramada midoobay ayaa dib ugu soo laabtay dalka isagoo maalnimadii hore ee Sabtidii ka qayb galay kulan weyne baarlamaanka looga hadlayay arrimaha dalka ee masiiriga ah. sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabaabay in dowladaha Jubbaland iyo Puntland laga doonayo in xal waara laga gaaro khilaafka kala dhaxeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya.